بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantiin aad baan idin salaamayaa waan idinku soo dhaweynayaa muuqaalka kani wuxuu daba socdaa kuwii ka horeeyey waxauna ku saabsan yahay Linuxka waxauna noqon doonaa cashirkii saddexaad. marka kani waxaan ka hadlayaa marka aynu samayno files Linuxka dhexdiisa faylasha aynu samayno ama textska aynu samayno qoraalada aynu samayno marka aynu rabno inaynu akhrino waxaa loo isticmaalaa tools kala duwan ama commands kala duwan ayaa loo isticmaalaa. maanta muuqaalkiin wuxuu ku saabsan yahay commandadaasi qaababka loo isticmaalo iyo waxay ku kala duwan yihiin. tusaale ahaan markaad rabto textka halkan inoo yaala inaad furato graphically markaad rabto inaad furato double click ayaad ku samaynaysaa. double click markaad ku samayso deetana wixii gudihiisa ku jira sidan ayuu kugu muuqanayaa. haddaba marka aynu commandska aynu ku shaqaynayno waxaa loo isticmaalaa commands ayaa loo isticmaalaa ama markaynu terminalka ku shaqaynayno commands ayaa loo isticmaalaa. commandka koowaad aynu qaadan doono loona isticmaalo textka iyo qoraalada si loo akhriyo kaliya maaha qoraalada laakiin configurationada aynu sameynayno Linuxka dhexdiisa ama any file Linuxka dhexdiisa marka aynu rabno inaynu furno dhammaan toolskan waa loo isticmaali karaa. toolskan maaha kuwa kaliya ee Linuxka lagu isticmaalo laakiin waa kuwo fara badan ayaa jira. kuwan waxay ka mid yihiin kuwa ugu caansan inta badanna muhiim ay tahay qofku Linuxka markuu baranayo inuu commandskan aad u yaqaano. haddaba commandka koowaad waxaa loo yaqaanaa head waa command ka tirsan commandska Linuxka. commandkani waxaa loo isticmaalaa saynu u sheegnay in textyada lagu furo oo lagu akhriyo. commandkani wuxuu sameeyaa inuu ku tuso 10 line ee ugu horeeya qoraalkaaga. for example configuration file ayaad rabtaa inaad furto waxa uu ku tusayaa 10 line ee ugu horeeya isla qoraalkaaga. tusaale ahaan waxaan leeyahay text1 ayaan furayaa fileka ay ku qoran tahay text1 ayaan furayaa enter markaan idhaahdo wuxuu ku tusayaa imika 5 line ee ugu horeysay ama si kale haddaan u dhigo kama koobna 10 line maaha linekiiba wuxuu xisaabinayaa hal line kaliya 3 line ayuu ka kooban yahay. saas awgeed haddii uu wax shaygii ka yaraado 3 line waxa uu markaa uu ku tusayaa dhammaan faylka gudihiisa. laakiin haddii uu faylku ka badan yahay 10 line ilaa 100 line uu yahay kaliya markaa waxa uu ku tusayaa 10 line ee ugu horeeya. faylkan kale ay ku qoran tahay text3 aynu ku tijaabino aan idhaahdo text3 maxaa soo baxay waxaa soo baxay 10kiisii line ee ugu horeeya. faylkan text3 ay ku qoran tahay ma 10 line ayuu ka kooban yahay maya kama koobna. haddaan soo furo adiga arkaya faylka loo yaqaano text3 wuxuu ka kooban yahay intan oo line. laakiin head markaan u isticmaalay waxa ay head ii samaysay oo ii furtay 10kii line ee ugu horeeyay oo kaliya. okay haddaba faylkan text3 linekiisa ugu dambeeya wuxuu ka kooban yahay waxa ugu dambeysaa j iyo f ayaa ugu dambeysa. waxaan ka wadaa commandkaasi head loo yaqaano waxaa ku tusayaa 10 line ee file kasta oo furayso 10 line ee ugu horeeya. command kale oo obsolete ayaa jira qoraaladana loo isticmaalo in lagu furo. commandkaasi waxa uu ku tusayaa 10 line ee ugu dambeeya magaciisana waxaa loo yaqaanaa tile ayaa loo yaqaanaa. waay enter aan idhaahdo saadalka ka arkayso 10 line ee ugu dambeeyay lineka ugu sii dambeeyay wuxuu ahaa jf resultiga ii soo baxay terminalkaygana halkaa waxaad ka arkaysaa waxa ugu dambeeya j iyo f ee ugu dambeeya. markaa labada command opposite ay isku yihiin. head wuxuu ku tusayaa 10 line ee ugu horeeya tilena wuxuu ku tusayaa 10 line ee ugu dambeeya. mar rabo 10 inaan u arko faylka dhan gudihiisa ayaan rabaa inaan arko. haddaba ma jira command kale oo loo isticmaalo waa jira. tusaale ahaan waxaan rabaa cat inaan ku furo text3. cat maxay sameysaa
cat wuxuu sameynayaa windowgan ii muuqda terminalkeenan ayaa waxa uu dhammaan waa ku wada furayaa qoraalkaasi ama ha leekaado ama yaanu leekaan qoraalka hal mar ayuu wada furayaa commandka loo yaqaano cat waa commandkii markii hore aan isticmaalay commandkan waxaa loo yaqaanaa cat commandkan wuxuu sameynayaa qoraalka aad furayso intuu doonaba ha leekaadee waxa uu ku sameynayaa hal documenti ama hal page ayuu kaaga dhigayaa haddii uu 12 page ahaa hal view hal buuqaal windowgaaga dhan ayuu kuugu furayaa waxaa jira kaasi mid kale oo ka duwan oo la isticmaalo tooliska loo isticmaalo tegasyada kala mid ah waxaa loo yaqaanaa kaasi less ayaa loo yaqaanaa haddaan idhaahdo less tegas 3 haddaan idhaahdo less maxay samaynaysaa less wuxuu ii sameynayaa page by page ayay igu furayaa anigoo haddii aan taabto enter uu qoraalku marba marka kasii dambeysa uu isbedelaya ilaa iyo inta laga gaarayo dhammaadkiisa haddii aan taabto baan idhi markaa less waxay samaysaa page by page qoraalkan kuu furan tegaskan kuu furan waa dhammaan waxay kugu sameynayaa windowgaaga in leeg ayay si page by page markasta oo windowgaagu furan halkan ilaa iyo halkan uu buuxsamo hal muuqaal hal page buu kaaga dhigayaa intaa wixii ka dambeeya another page ayuu ka dhiganayaa markaad ku dhufato enter ama space sideed uga soo bixi kartaa iminka command ma qori kartid sideed uga soo bixi kartaa marka waxaad uga soo bixi kartaa inaad keyboardkaaga taabato q oo dhinto quit aan ku celiyo mar labaad failure oo normal ahaan sameeyo si aan halkaa u fahno 1 ayaan leeyahay 2 3 4 5 6 7 8 9 waxaan sameeyey qoraal yaro kooban oon u bixiyey number waxaan rabaa qoraalkan inaan less ku furo qaabkii less u shaqaynayso inaad ila fahantaan ayaan rabaa windowgana ha soo yar koobo terminalkeena ha soo yaro koobo inter ayaan leeyahay waxay ka bilaabmayaan numberskaygu 1 ilaa iyo 11 haddii aan ku dhufto space maxaa dhacay numberka ugu dambeeya waa maxay waa 12 weeyaan muxuu ii leekaysiiyey pagekii terminalkan inoo furan windowgan inoo furan mar labaad haddaan ku celiyo enter maxaan joogaa pagekii ugu dambeeyey markaa less waxay u shaqaysaa documentiga aad haysato ama fileka aad haysato iyadoo windowga kuu leekaysiinaysa page by page kaaga dhigaysa haddaan ku celiyo mar labaad commandkii ugu horeeyey magaciisu waxa uu ahaa head ayuu ahaa wuxuuna ku tusayey 10 line ee ugu horeeya yes numberska aad arkayso waxaan hayaa keliya 10 line ee ugu horeeya haddii aad u fiirsato numberka aad soo furto 10 line ugu horeeyaan yes waa ugu horeeyaan maxaa ugu dambeeya waxa ugu dambeeya 10 line ee ugu dambeeya ayuu ku tusayaa commandkii opposite-ka ku ahaa ee loo yaqaanay magaciisa tile wuxuu ku tusayaa 13 ilaa iyo 12 meelahaas 10 line ee ugu dambeeya ayuu ku tusayaa laakiin cat haddaad tidhaahdo iyadu maxay samaynaysaa cat haddaan idhaahdo number haddaan idhaahdo isagu wuxuu sameynayaa documentiskii intuu doonaba ha leekaadee hal mar ayuu ku wada furayaa halka haddii aan less idhaahdana page by page ku dhigayso maanta waxaan isticmaalayaa operationka aan isticmaalaya maanta waa CentOS waana version 7kiisii weeyaan maaha kaaligii dhammaantiin aad baan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu